waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan isku soo noqosho wacan waxaan soo gaarnay casharkeeni saddexaad oo kan ahaa waxaana la yiraahdaa segnale di divieto. Segnale di divieto maxaa weeye marka calaamad ka mamnuucayso wadadaas inaadan gali karin. Marka waxay mamnuucayso meesha marmar basaa ku soo sawirmaayo, mar dad bini aadana ku sawirmaayo, macnaha hadba waxay mamnuucayso ayaa ku sawiran. Marka general ahaan ama guud ahaan waxaa la isku dhahaa segnale di divieto, calaamada mamnuuca tilmaamayso. Okay, marka gudaha aan gal dhag aan furno waxaan kala il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale, vero? Calaamadan waxay mamnuucaysaa yiri vieta waxay mamnuucaysaa transito inay maraan ai veicoli a trazione animale, baabuurta jiidayaan xayawaanada. Tusaalahan kan hadda gaari waay, gaari faras waay sooma, maxaana jiidaya xayawaan, marka way mamnuucaysaa, vero? Il segnale raffigurato si può trovare prima di un ponte, vero? Calaamadan ma laga heli karaa u dhahay inta aadan gaarin meel buunto hoosteeda, vero? Perché buundada ama buundo korkeeda, buundada waxaa laga yaabaa culeys oo xadka ka baxsan inaan loo ogolaan inay dul maraan, marka buundooyinka waa laga helaa kan oo kale, vero? Il segnale raffigurato consente la fermata se il veicolo non arreca intralcio alla circolazione, falso. Calaamadan wuxuu leeyahay waxay ogolaanaysaa inuu gaariga istaago haddii gaarigaas uusan carqaladaynaynin intralcio, carqalada waaye la circolazione wadada la marayo, falso waaye. Tan mar walba waxay mamnuucaysaa inuu gaariga istaago, inuu barkeeji ku sameeyo, labadaba way mamnuucaysaa. Marka consente uu dhahoya waa ogol yahay, falso waaye marka. Il segnale raffigurato segnala che nella ora indicata vige il divieto di sosta per il veicolo rappresentato in figura, no, falso. Wuxuu leeyahay calaamadan meesha ku sawiran che nella ora indicata iyo saacadaha meesha ku sawiran vige waxay sheegaysaa il divieto inay ka mamnuucayso di sosta inay dhigtaan ama la dhigo barkeej ahaan loo dhigo per il veicolo rappresentato in figura, baabuurka meesha ku sawiran, no. baabuurkan meesha kama mamnuucaysa, waxay ka mamnuucaysaa baabuurta kale, waxayna u mamnuucaysaa saacadda meeshan ku qoran iyo baabuurkan waxaa la sameynaa nadaafada wadada, waxay baabuurka nadaafadu sameynaa, saacadahan asaa meesha ka shaqeynaya, marka asiga kama mamnuucaysa, falso waa. Il segnale raffigurato consente il transito della bicicletta nelle ore notturne, falso. Calaamadan waxay u ogolaanaysaa inay maraan baaskiilada xilliga habeenkii, no. mamnuuc mar hadday ku qoran tahay mamnuuc waaye, habeen iyo maalin labadaba looma ogolo inay meeshan baaskiil ay gasho, marka habeen looma ogolo, falso waaye. Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata, no. Calaamadan waxay tilmaamaysaa uu leeyahay speedka lagugula talinayo, no. Kan maxaa waaye speedka ugu sareeya aad gaari karta massimo waaye, wixii ka badan 85 speedka ma gaarsiin karta, 80 ugu badan, marka wixii ka badan deviate waaye, marka maahan velocità consigliata, ma falso waaye. Il segnale raffigurato se integrato con pannello P indica una zona in cui vige divieto di sosta con rimozione del veicolo, vero? Wuxuu leeyahay calaamadan A se integrato haddii ay la socoto con pannello B, calaamadan B-da indica waxay sheegaysaa una zona meel in cui vige divieta di sosta, meeshaas oo ka mamnuucayso in baabuurta la dhigto con rimozione del veicolo, haddii aad dhigatana gaarigaaga la qaadayo oo dowladda qaadayso oo waaba lagaa qaadaa, ma fahanti, vero waaye. In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari 3 tonnellate trainati un carrello appendice può sorpassare veicolo a motore. Un'autovettura. 3 tonnellate. Falso, perché wuxuu dhahaa vero, perché wuxuu dhahaa bari cadadkeeda uu dhan yahay 3 tonnellate trainato un carrello appendice può sorpassare un'autovettura. Secondo me è vero, perché kan wuxuu mamnuucayaa bas baabuurta culeyskooda uu ka badan yahay 3.5 tonnellate, meeshan wuxuu leeyahay
bari in la mid ah 3 tonnellate uu leeyahay. Marka 3 tonnellate waxay ka yar tahay 3.5 tonnellate way ka yar tahay. Marka waa caadi wuu sarbaansayn karaa say ila tahay. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli. Allora, vero. Calaamadan waxay mamnuucaysaa yiri vieta waxay mamnuucaysaa il transito inay maraan ai veicoli baabuurta trainati da cavalli kuwaasoo jiidaya fardaha cavalli allaha. Vero way mamnuuce. Il segnale raffigurato non vale per i motocicli ed i ciclomotori. Allora, motocicli e ciclomotori. Calaamadan wuxuu leeyahay sharci ahaan ma qabanayso mootooyinkii iyo no false way barke meeshan baabuurna lama dhigi karo mootona lama dhigi karo bataatanba waa mamnuuc. Marka false inay tahay la tahay. Waa fahanteen sooma? Il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada. Falso. Wuxuu leeyahay il segnale raffigurato calaamadan waxay ku tilmaamaysaa indica sida ay sheegayso la distanza minima spaceka idin dhexeeyo di sicurezza oo kaasoo amniga tra due autoveicoli in transito su quella strada. Waxay tilmaamaysaa uu leeyahay labada baabuur oo wadadan ku socoto spaceka u dhexeeya inuu ahaado 2.30 metri inay ahaato. False way. Kan waxaa waaye la lunghezza waaye ma aha distanza di sicurezza maaha. Marka false waaye. Il segnale raffigurato obbliga ai veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro. Meno. No, falso. Meno maahan minimo waaye. Wuxuu leeyahay il segnale raffigurato calaamadan obbliga waxay waajib ka dhigaysaa i veicoli baabuurta a marciare inay ku socdaan a meno di 70 metri di distanza wax ka yar 70 mitir labada baabuur dhexdooda inay u dhexeyso. No, inta marka waxay tilmaamaysaa labada baabuurkan socday iyo kan horeeyay iyo kan ku xigay inta u dhexeyso inta ugu yar oo dhexdooda u dhexeyso waa inay ahaato 70 mitir wixii ka yar mamnuuc waaye. Marka intan wuxuu leeyahay meno. Marka false waaye. Il segnale raffigurato non vieta la fermata. Calaamadan ma mamnuucayso dhahay inuu gaariga meesha istaago. Vero. Waayo calaamadan gaariga way u ogolaanaysaa inuu meesha istaago laakiin waxay ka mamnuucaysaa inuu barkeej ahaan u dhigto. Okay? Vero. Il segnale raffigurato vieta la fermata a tutti i veicoli. Calaamadan waxay mamnuucaysaa inay istaagaan meeshan dhammaan baabuurta. Vero. Waayo calaamadan waxay mamnuucaysaa marba hadday laba istilaab tahay waxay mamnuucaysaa in la istaago in barkeejo la dhigto labadaba. Hadday hal calaamad saana kaliya ay tahay tii haddaan soo dhaafayna oo kale waxay mamnuucaysaa soostada ama barkeejaha. Laakiin hadday labadan tahay barkeejadan way mamnuuca istaagana way mamnuuca. Vero. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio riservato ai veicoli della polizia di stato. Falso. Wuxuu leeyahay calaamadan waxay tilmaamaysaa un'area meel di parcheggio oo baabuurta la dhigto riservato kaasoo loogu talagalay ai veicoli della polizia di stato baabuurta booliiska dowladda ay leedahay. Falso. Meeshan qof walba dhigan kara baabuur booliis kali looguma talagelin. Marka falso. Il segnale raffigurato consente la sosta ai quadricicli a motore. Calaamadan waxay u ogolaanaysaa uu dhahay inay dhigtaan soosta ahaan quadricicli motore baabuurta afar lugootayda. Falso waaye. Wax baabuur ah meeshan oo soosta dhigan kara malaha waayo way mamnuucaysaa. Calaamada mamnuuca mar hadday meesha ku dhigan tahay baabuurta dhan way ka mamnuucay. Marka falso waaye. Il segnale raffigurato è posto nei luoghi dove la sosta è vietata. Vero. Wuxuu leeyahay il segnale raffigurato calaamadan aa ujeedin è posto waa meel waxay ku taalaa meel laga mamnuucay in baabuurta soosta ahaan loo dhigto. Vero. Il segnale raffigurato vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada. Pulizia meccanica della strada. Meccanica. Annaggia meccanica non ho capito. Calaamadan wuxuu yiri waxay mamnuucaysaa
viata la sosta in la dhigto baabuurta nei periodi xilliyada in cui viene effettuata xillidaas oo la qabanayo la pulizia nadaafadda meccanica della strada, nadaafadda wadada. Secondo me è vero. Ok, muxuu kaloo leeyahay il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autoveicoli. Vero, calaamadan waxay mamnuucaysaa uu dhahay inay maraan baabuurta, dhammaan baabuurta inay meeshan maraan ay ku mamnuucaysaa. Vero waay, perché tutti gli autoveicoli. Autoveicles, vero waay, perché waxay ka mamnuucaysaa baabuurta inay meeshan galaan. Marka baabuur nooc walba oo ahaada meeshan ma geli karo. Vero waay. In presenza del segnale raffigurato consentito sorpassare veicolo a trazione animale. Vero, wuxuu leeyahay in presenza del segnale, calaamadan meesha idinkaga muuqato del segnale oo calaamada raffigurato waxay ka dhigan tahay e consentito in loo ogol yahay sorpassare in la baaso ama laga gudbo veicolo a trazione animale. Haddii macnaha adiga gaari aa wadatid hortaadana uu socdo faras oo gaari ku xiran oo jiidayso waa sorpassayn kartaa, laakiin wax motor leh ma baasi karaan. Marka vero waay. Il segnale raffigurato indica la fine di divieto precedentemente imposto. Vero, calaamadan waxay tilmaamaysaa uu dhahay meesha ugu dambeysay divieto ama waxyaabaha mamnuucaysa wax walba ay ahaato. Waxaa laga yaabaa inay velocità ay mamnuucayso, inay sorpasso mamnuucayso, inay maxaa la yirahdaa fermata mamnuucayso. Marka la fine ay noqonaysaa meeshan. Wuxuu leeyahay marka il segnale raffigurato calaamadan indica waxay sheegaysaa la fine meesha ugu dambeysay divieto oo mamnuuca precedentemente imposto, meelaha aan soo dhaafnay waxyaabihiina laga mamnuucay. Calaamadan waxay ka dambeeyeen lagama mamnuucay, mamnuuci wuu soo dhamaaday camal. Vero waay. In presenza del segnale raffigurato è sempre disposto la rimozione forzata del veicolo. Vero, calaamadan waxay tilmaamaysaa yiri raffigurato è sempre disposto, mar walba waxaa la sameynaya oo dhahay la rimozione in gaariga la qaado ama la jiido forzata oo taas khasaba del veicolo. Meel calaamadan ay taalo, haddii meel calaamadan ay ku taalo wadada qarkeeda ama gurida diridiisa ama laamigaba, haddii adiga gaarigaaga aad dhigatid mar walba waxaa kugu dhacayo qasaba in gaarigii lagaa qaado haddii dowlad ay kugu soo gaarto adoo gaarigii meesha ku yaala. Laakiin haddii wax yar tuugnimo u dhigato macquul, laakiin batatan waxay mamnuucaysaa in gaari oo dhan la dhigtaba. Haddii dhigatidna waa lagaa qaadaa. Forza rimozione, mujadino. Marka vero waay. Il segnale raffigurato indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza. No, falso. Wuxuu leeyahay calaamadan waxay tilmaamaysaa in ay dhamaatay wixii waajibka kugu ahaa, waajibka ku saarnaa oo ahaa inaad adiga ilaalisid distance idin dhexaysa adiga gaariga kale ka horay. Ma aha, falso. Kan waxay ahayd divieto di sorpasso camal ay ahayd. Marka obbligo di distanza di sicurezza ma falso waay. Il segnale raffigurato per essere valido deve contenere l'indicazione dell'ente che ha connesso l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio. Vero, wuxuu leeyahay il segnale raffigurato calaamadan per essere si ay u ahaato valida mid shaqaynaysa deve contenere waa inay lahaataa l'indicazione ogaanshihiisa ama nidaamka u yaalo dell'ente che ha connesso, macnaha dowladdu inay soo siisay iyo inuu yahay mid sharciyeysan. L'autorizzazione oo la sharciyeeyey, il numero e l'anno del rilascio si loo ogaado u dhahay in maxaa la yirahdaa bahal jiro uu yahay oo uu shaqaynayo waa in uu lahaadaa kommunaha laga soo daayay. Hadda fiir meeshan waxaa ku qoran Comune di Roma, community-ga Roma. Lambarka waxaa ku qornaanayo oo dowladda ay soo siisay, lambarka meeshuuna ku qoran yahay iyo sanadka la soo dhaafay. Waxaas dhanaa ku qornaanayo hoostan inay ku qoran yihiin umaleynaa si fiican loo markayo. Waa fahanteen sooma? Marka waa vero. Il segnale A integrato con il pannello P indica una zona rimozione quota. Quota cos'è? Quota. Wuxuu leeyahay calaamadan A haddii ay la socoto B waxay tilmaamaysaa meel oo maxaa la yirahdaa rimozione quota in la qaadayo quota. Secondo me è vero.
waayo meesha waxaa ku sawiran in baabuurka laga qaadayo haddii aad dhigtid. marka vediamo vero aa dhehna vero waay barkee waxay mamnuucaysaa in soosta aad dhigtid. haddii aad dhigtidna sharciga ku xadgudubtay dowladda imaanaysa, gaariga waa laga qaadaa, kumuunaha la geeyaa, waa la xiraa, kadibna lacagaa kusoo daynaya ama waxaa sameynaya ganaaxa kugu dhacay. marba haddaa aragtid waxaan oo kale, calaamadan aragtid, waxaan aragtid ay ku hooseeyaan, haba dhigin gaarigaaga. haddii kale waa lagaa qaadana adoo ka maqan, waana lagaa xiraa haddii kale. Okay? Il segnale raffigurato indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone invalide. No, wuxuu leeyahay calaamadan waxay tilmaamaysaa una corsia meel koorsa ah oo baabuurta imraan riservata meesha taasoo loogu talagalay ai veicoli al servizio di persone invalide, baabuurta u shaqeynayso dadka curyaaminta ah. maxaa la yirahdaa koorsadooda waa camal waay fals waay. meeshan waxaa waaye divieto di sosta waaye, inaadan dhigi karin barkeejo, laakiin waxaa dhigan kara bes dadka oo jiisaska ama aragtaa calaamada barkeejaha iyo qofka jiiska, dadkan waa loo ogolyahay, laakiin dadka kale baabuurta ma dhigan karan waay. marka fals waay, non corsia di riservata. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa superiore 6.5 tonnellate. falso. wuxuu leeyahay calaamadan waxay ogolaanaysaa inay mari karaan baabuurta. consentito waxaa loo ogolyahay il transito inay maraan gli autoveicoli baabuurta ad uso speciale, baabuurta sida qaaska loo isticmaalo di massa superiore, taasoo cadadkooda ama rarkooda maca culeyskooda ka badan 6.5 tonnellate. falso, wax ka badan lama ogolo. marba haddii uu 6.5 uu ka badan yahay lama ogolo inuu maro. hadduu raba ahaado mid uso speciale, hadduu raba ahaado mid madaxweynaha uu leeyahay, xataa ma mari karaan. ma fahamta? marka falso waa. In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a motore che procedono molto lentamente. falso. wuxuu leeyahay calaamadan waxay ku ogolaanaysaa in presenza del segnale raffigurato, calaamadan waxay ku ogolaanaysaa consentito in la ogol yahay il sorpasso inaad baastid dei veicoli baabuurta a motore kuwaasoo motorka la che procedono kuwaasoo ku socdo molto lentamente, kuwaasoo tartiib u socdo. falso waay. baabuur motor le kale ma baasi karo. haddii baaskiil waa baasi kartaa, waxaa kaloo baasi kartaa fardaha oo gaariga jiidaya waa baasi kartaa, laakiin laba baabuur oo motor le isma baasi karaan. falso waay. il segnale raffigurato consente la fermata, calaamadan wuxuu dhahay waxay ku ogolaanaysaa la fermata inaa istaagtid oo gaariga ma daminaysid, laakiin waa istaagay wax yar dan yaraa qabsanaya, ama qofaa digaya ama qofaa saaranaya, waana kasii soconaya. vero waay. fermata way ogoshahay, laakiin calaamadan soosta ma ogolaanaysa. vero waay. su-aashii ugu dambeysaa nimid ee asxaabta qiimaha badan, ilaah hadduu ku roon yahay ama idin roon yahay ama noo wada roon yahay. casharkeena mar walba saan ayuu u soconayaa. waxaan maxaa la yirahdaa ku dadaali doonaa mar walba inaan isku dayo inaan idin fahansiiyo sida ugu wanaagsan ama ugu habboon aad ku fahmi kartaan. xoogo yar markaan akhrinayo si degdeg oo speed aan ku akhriyaa, waayo waqtiga aad maxaa la yirahdaa u gaaban. haddaa waqtigan kadib dhaco saacadda ay ugu dhacayso. ma fahanti? 30 su-aalaad waxaa daruuriya inaa uga jawaab 20 daqiiqo gudahood. sidaa darteeda u boobsiyaa igar hal noqda. okay? teeda kale casharadan iyo youtube-ka intaba share hala dhaho, asxaabtana u share gareeya. asxaabta khaasatan kuwa talyaaniga jooga oo danaynaya inay qaataan laysanka wadankan talyaaniga, anoo weliba idinku fasirayo luuqadiina hooya. marka su-aashii ugu dambeysa ayaan ka jawaabayna. il segnale raffigurato prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia destra. falso. calaamadan waxay tilmaamaysaa yiri inay waajib tahay ai veicoli baabuurta che non superano kuwaasoo xawaarahooda che non superano kuwaasaan dhaafayna la velocità xawaarahooda 50 km/h 50 km/h ayagoo xawaarahooda dhaafaynin di marciare inay isticmaalaan sulla corsia di destra u dhaho, koorsada oo midig inay isticmaalaan. falso waay. meeshan waxaa waaye la fine del divieto inay tahay umalayna, la fine del divieto ama la fine del obbligo, wax noocaas waay, laakiin ma ahan corsia di destra utilizzare. falso waay. casharkeena saan ayuu noogu dhammaaday. waxaan filayaa inaan wax su-aal aanan qaldin. hadda waxaan fiirinaynaa imisaan qaladnay. insha allah billahi alkarim waana boobsinaynaa 52 sekanaa nooga dhiman. dhagdhag kiudi akana. okay, waa ujeedin waxaan sameynay 0 roore, waxba maanan qaldin. su-aalihii dhan saas ayaan ugu wada jawaabnay. insha allah billahi alkarim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. share iyo subscribe ku qabta. ciao ciao.